kulanti wacan oo wanaagsan ikhyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu door karoon oo ku dhageysan doontaan halkan haduu eeba uu idmo. wararkeena aad maqli doontaan waxaa kamida ururka al-shabaab oo baryahanba ku dhex wareegeysan hayay gobolka Afdheer ay maanta degmada Ceelkari ciidamada New Booliska waxay ku soo qabteen in ka badan 50 qofood kuwaas oo ku dhuumaalaysanayeen buuraleyda Ceelkari. waxaa kale qodobada wararkeena aad ku sii maqli doontaan Mukhtaar Roobow oo maanta loo doortay wasiirka diinta iyo awqaafta iyadana waan ku qaadaa dhigi doonaa. waxaa barnaamijka igula sugan saaxiibkay Cabdi oo badanaaba falanqeeya wixii waro naga soo gaaray dacalada adduunka. Cabdi soo dhawow haddaan ku horeyno qodobkeena ugu horeeyo ururka al-shabaab isbuucyadan soo dhaafnay weerarka ku qaaday dowlad deegaanka Soomaalida haraagi ka haray iyo wax kale oo meelaha ku sii jiray degmada Ceelkari buuraleyda. ciidanka New Police baa weerar ku qaaday maanta waxaa la sheegayaa in ka badan dagaalyahano kontana la soo qabtay ciidanka iyo shacabka oo iskaashanaya. maxaad kala socotay? mahad colada waa mahadsan tahay dowlad deegaanka Soomaalida waa tii maalmihii isbuuci la soo dhaafadhan oo dagaal ka jiray marka dagaalkaas oo ka jiray waxaa mar ka dambayso isoo taray qaabka dad loola macaamilayo ragga la soo qabanayo iyo qaabka isheeg loo soo bandhigayo macnaha maalin ka dambayso marka dagaaladii la galay kadib firxad far badan ay ururka al-shabaab ee gudaha dowlad deegaanka ay ku galeen marka waxa ugu dambeysay maanta ilaa shalay howlgalo far badan ay ka sameeyeen gobolka Afdheer deegaanka lagu magacaabo Ceelkari waxaana soo qabteen dad fara badan dad shacab ayaa waxay soo sheegeen in dadka qayb kamid ay soo qabteen laakiin ay gaarayaan dhamaantood 50 qofood oo ururka al-shabaab ka tirsan halkaas deegaankaas iyo aagiisa iyo buuraha inay ku jiraan marka howlgalo fara badan ay sameeyeen ciidamada New Poliska waxayna soo qabteen ishaag ilaa iyo intaas oo askari oo aad hadda qaarkood aad ka arki doontaan baraha bulshada aadna loo soo bandhigay marka New Poliska dadaal fara badan ay wadaan. waxaa kaloo leeyahay New Poliska waxay isku diyaariyeen dagaal kale oo saddexaad oo ay la galaan ururka al-shabaab maadaama la leeyahay ururka al-shabaab weli deegaanada kama fogo oo is diyaarinayaan marka cabsi fara badan ayaa jirto ciidamada dowlad deegaanka New Polisna aad ay u diyaar garoobeen howlgallo gudahana way wadaan mid banaankaana hadda ay u diyaar garoobayeen mahdo. Cabdi waxaan arkaynaa dad shacaba oo ciidankan al-shabaab meelaha lagu dagaalamay ay dhibaato u geysteen ayagoo oo dadka shacabka oo arkay hadda wixii maalmihii hore wixii ka dambeeyay qofka ay arkaan inay dadka xabad ku furahayeen oo ay dilahayaan qofka ay arkaan ay dhahayaan carna sheeg kii kala socaboolan waxa wadanina dadka bidhaanta smartku arko uu ka baxsanay marka dad fara badan oo waxaan arkaynay laftooda isbitaal yaalo oo miina ay ku soo tuureen waxa ku soo dareen bangamceed say sheegayaan ay ku tuureen oo lugaha ka go'ay yaan arkay marka dadka shacabka nimankaas dhibaato fara badan oo aad u fara badan ay u geysteen dadkuna waa dad muslimiina waana dad abaare ku jira sababta ay dhaxdooda ay weerarka ugu soo qaadeen ay looga kari laayahayna wallahi ma garanayno. Cabdi maxaan dhihi karnaa nimankan haddana waxay qorsheynayaan wararku say sheegayaan inay mar labaad isdhexgeliyaan haddana xuduudkii ay galaan meeshan maxaa Cabdi nimankan looga kari laayahay ay ku arkeen? والله horta maado meesha dagaal adag ayaa ka dhacay dhibaato fara badan ayaana meesha ka dhacday ururka al-shabaab ayagana dad fara badan ayaa laga laayay ayagana waxa way ma quusanayaan maalinta ka dambaysa dagaal ay soo qaadayaan dad ayagana dad badan ay dhibaateeyeen marka dadka shacabka marka hore maysan taabaneen maalmihii hore ay weerar ka qaadayeen laakiin hadda maalmahan dambe waxa u maleysaa shacabka inay sheegayaan oo meeshan qof lagu arkay leeyihiin dowlad deegaanka Soomaalida xataa waxa laga yaabaa qofkii taga meeshaas in isla markii la soo qabto in waa dad sirdoonkooda aad u fog yahay waa dad shacab iyo dhalinyaro iyo waalidiin iyo haween intaba isku xiran marka qofkii ka dhashay xataa doo meesha tago isla maalintii waa la soo qabanaya waxa leeyahay xagee ka imaaday xagee u socotaa yaa ahayd marka anaga nin saaxiibkeena xataa oo Nairobi nooga tagay waxa lagu qabtay meeshaas oo asagana waa la weydiiyay su'aalo la weydiiyay marka qof iska fudud oo caadi shacab hadda doo meesha tago waa la qabanaya marka waxa is leedahay say wax u jiraan qaabkan sirdoonkan faraha badan dadkan isku xiran xagee ka imaadeen marka sababtay u beegsanay dadka shacabka waxa waaye sirdoonka faraha badan iyo macnaha xog wareysiga iyo qaabka loo qabanayo qaabka loo macaamilayo aad u la yaabeen marka markii dambe inay wax ku tuuraan iyo inay dadka toogtaan danta ku qasbay sababta waa la sheega meesha marayaan oo la soo qabanaa marka taas ayaa mahad culeys ka keentay. Okay qodobkeena haddaan halkaas aan kaga sii gudubno maanta waxaa dhacday in la magacaabay wasiiradii dhamaantood wasiirada waxaa ku jiray Mukhtaar Roobow Abu Mansuur wuxuu ka mid ahaa ururkii al-shabaab
wuxuuna hawsha kasoo bilaabay midowgii maxaakiimta ka hor. xitaa waxaa la sheegay in uu ninkan uu Afghanistan uu kasoo dagaalamay oo Usama bin Laden uu arkay. adduunku waxay ugu farxad badnayd marka hore soo sheegaya isagu uu dhahalay hadda ka hor. adduunku waxay ugu farxad badnayd markaan Usama bin Laden aan arkoon la kulma. marka ninkan waa nin weyn. marka maxaa dhici karnaa Cabdi ninkaas haddana waxaa lagu soo daray diinta laga dhigay. waxaan leenahay macallimiin dugsiga iyo carruurta dugsiga baranaysa hadii diinta loo dhiibay amarkiisa ku shaqeyni. hadda kadib dad badan baa dadkii bas way halkaas iyo dadku wada tageen. horta hadda ninkan waxaa leeyahay horta maanta qaabka loo magacaabay dadka shacabka Soomaaliyeed aad uga falcelinayaan. waxay leeyihiin horta hadii Mukhtaar Robow wasiir loo magacaabo waxay ahayd in marka hore maalmihii hore la soo daayo warqad loo qoro oo inuu meesha ururka ka baxay la cadeeyo oo warqad lagu sii daayo maxaabiisnimadiisa laga saaray oo haddana lagu bariyeelayo in la soo saaro markaas kadib golaha wasiirada lagu daro. laakiin dadka waxay aad u dhaliilayaan dowladda Xasan Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre sababtoo waxay leeyihiin xalay ayaa xabsiga laga soo saaray isla maantana wuxuu dhex joogay wasiirada la magacaabay ee ka mid ahaa halkaas ayaana lagu magacaabay. marka dadka shacabka waxay leeyihiin qaabkaas degdeg ah macquul ma ahayn. haddii lacala ninka la magacaabay waxay ahayd in la soo dhex dhigo bulshada marka horena warqad caddeyn oo lagu bariyeelayo inuusan waxba dhibaato geysanin ururka al-shabaabna oo ka tanaasulay in la soo bandhigo ayay ahayd. marka dadka eed fara badan ayaa loo jeedinaya Xasan Maxamuud iyo gruubkiisa haba ugu badnaadaan taageerayaasha nabad iyo nolol oo aad ugu maanta ugu baraha bulshada u haysto. Cabdi wuxuu hadduu uu yahay siyaasad qofku wuu ka tanaasuli karaa. laakiin shayga hadduu qofku uu yahay diin oo diin ahaan iyo mabda uu aaminsan yahay kama tanaasulo. Mukhtaar Robow waxaa dhici karta diin ahaan iyo fikrad iyo wixii uu qabay inuusan ka tanaasulin laakiin is afgaran waayeen raggii uu la shaqeynayay ee waaweynaa uu ka mid ahaa ninkii ururka al-shabaab ninkii u weynaa magaciisa muxuu ahaa Godane ay is afahmi waayeen. Godanana markay arrimihii ay isfahmi waayeen buu dad badan oo ka hor imaadayna uu laayay. markii dambe Mukhtaar Robow wuxuu aaday dhinacaas iyo Baydhabo iyo meeshii uu dadkiisa ku badnaa halkaasuu ciidamo ku urursaday oo markii dambe ku xoogeystay. marka waxay ku kala tageen mabda diiniga kumaysa kala tagin laakiin qaabka isfahmi waa kale. waxaa laga yaabaa xagga dhaqaalaha xitaa inuu ka mid u yahay ama xagga sida wax loo maamulayo in la isku fahmi waayey. marka saan qiyaasayno Mukhtaar Robow saas wax laakiin mabdiisi uu qabay ninkan kama tanaasulin waa wax ku dhagan. marka waxaan dhihi karnaa diintana isaga loo weynayay. marka carruurta Soomaaliyeed ee soo barbaaraysa ee hadda soo kacaysa ee wax la barahaya la ababinayo dadka wax barahaya ee macallimiinta ee wax soo barahaya bulshada waxay ku leeyihiin saameyn hadba say wax u barahayaan iyo say u ababinayaan. ardaygu macallinkiisa wuxuu ku shubo ayuu qaataa. marka macallimiinta hadda la soo xulay waxaan dhihi karnaa waa macallimiin haysta fikradda ninka lagu magacaabo Mukhtaar Robow ninka ka garan ka duwana ma shaqeyn doono. marka waxaan dhihi karnaa dad badan oo Soomaaliyeed oo ubada hadda soo barbaarahay yaa maskaxda laga bedeli doona. Soomaalina aakhirkeeda waxaan ka yaabi inay u dambayso inay nimankan ay la wareegaan xaq jirka. والله horta mahado horta sida Soomaalida mar walba aad ma lagama waayo hadda Mukhtaar Robow inuu ururka al-shabaab oo kamid yahay ay dadka ku eedanayaan laakiin dadka Soomaaliyeed wuxuu og yihiin asagoo ka soo baxay oo asagana haddana xabsi 4 sano lagu hayay oo isheeg banaanka inuu ka noqdo ururkaas oo haddana isku fikirka ay kala duwanaadeen qaabka wax loo maarayna isugu dhaceen aniga nafsadeeda halis la geliyo dhahay. marka waa too Baydhabo isheeg oo markii waagi soo dhiibay Muqdisho laga dajiyay heshiis dawladii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Xasan Cali Khayre ay la gashay haddana markii dambe markuu is sharaxay waa tii lagu dhagay. marka waxaa la leeyahay waxaas oo dhan iska siyaasad ay ahaayeen. marka dad fara badan oo ururka al-shabaab ka soo baxay oo la cafiyo dawladda kamid ah ayaa jiro. waxaana kamid ah ninkii la dhihi jiray Sakriye oo taliyaha NISA taliya ku-xigeenka NISA ahaa. marka dad fara badan ka soo baxay waxay leeyihiin fikirkooda ka tanaasulay. marka qofka hadduu meesha ka soo baxo aad waxba kama ogaan kartid hadduu fikirkiisa ku sii socdo iyo haddii kalena way cadaan doontaa marka xilka loo magacaabo. marka waxaan isleeyahay hadda Mukhtaar Robow maadaama meesha ka soo baxay haddii wasiir loo dhiibo waxba dhib ma lahan haddii beri ka maalin uu socon waayana kolba waa la bedeli karaa. marka waxaan leeyahay mahado sheekada saas ayay ku dhamaan doontaa. maanta wasiiradii la magacaabay nin wasiir ku-xigeen ah wasiirka qorsheynta ku-xigeenkiisa ayaa maanta is casilay oo reer Puntland maxaa ku dhacay ninkaas sababtay isku casilay. والله horta ninkaas wuxuu leeyahay horta nin dhalinyaro ahaa wuxuu leeyahay aniga meesha la magacaabay wasiir ku-xigeen ayay ahayd. marka beesheeda ayaa la tashi la sameeyay inaan u qalin kabeel ahaan ayaan isheeg la soo jeediyay anigana waa ka tanaasulay. marka wasiirkaas waxaa leeyahay waxay isku cid yihiin gabadha gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka la yiraahdo Sacdiyo
sacdiye firin bay dadka u yaqaanaan iyo asaga ayaa isku reer ayaa leeyahay marka nooma qalanta ayay leeyihiin wasiir ku-xigeen marka wasiir buuxa inaan helnay ahayd haddaan weynana waan ka baxnay oo leeyahay mahado okay kuwaas waxay ahayn qodobada wararkeenii oo ugu dambeeyey dacalada adduunka naga soo gaadhay kheyrta hawada nagala socotay meel kastoo joogtaan saasiyo nabadgelyo